sanad guuridii 37 ee ka soo wareegtay 1977 oo ahayd markii ugu horeysay ee ciidamada dawladda waddanka Djibouti la aasaasay. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan, saraakiisha ciidamada AMISOM, saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo qaybaha bulshada ku dhaqan beledweyne. Gaashaanle Cali Xuseen Cali Dheere oo ah kusimaha taliyaha ciidamada AMISOM ee ka socda waddanka Djibouti ee ku sugan gobolka Hiiraan oo wareey munaasabad ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda waddanka Djibouti tan markii la aasaasay ay waddankaasi soo gaarsiiyeen horumar dhinacyo badan taabanaya. qodobka sababta u dhaafo waxa ku saabsan ciidanka Djibouti wuxuu soo qabtay dhaqaaqiisii dhismihiisii inta qaybood uu ka tirsan yahay wuxuu waddanka u soo qabtay nabadgelyada uu gaarsiiyey حق على هذيك هاي حق بتقولي هذيك هاي اللي عندهم كم هذيك سوق لنا عم بقول وتا ما أنت واحد لا يقول بليني واحد السيري تهنيت بالسيري تراكيشة سلسة عندك جيبوتي تراكيشة تراكي كلية أسكتها qaybaha kala duwan ee ku dhaqan beledweyne oo ka soo qayb galay munaasabada ayaa dhinacooda hambalyeeyay sanad guuridan ciidamada Djibouti maanta ay dubaaldegayeen. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax oo munaasabada soo xiray ayaa shacabka iyo waliba ciidamada dawladda Djibouti u hambalyeeyay sanad guuridan. Waxa uu sidoo kale gudoomiyaha gobolka u mahad celiyay madaxweynaha waddanka Djibouti go'aankii adkaa oo ciidamadiisa u soo diray waddanka Soomaaliya si ay uga qayb qaataan xasilinta waddanka. Waxaan marka hore halkan uga hambalyeeynaa ciidanka xogga dalka Djibouti hajowga beledweyne ama waddankoodii hooyo ee Djibouti waxaan leeyahay ciid wanaagsan. marka xiga waxaan halkan ilaahay uga baryayaa ama ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kan reer Hiiraan ay ku sugan yihiin ayuu loo ilaalinaya ciidanka Djibouti. waxaan ilaahay ka baryaynaa raggii ka geeriyooday ciidankaasi Djibouti intii ay soo jireen ay taariikhdu soo jirtay ee gaaraysa muddadaas 70 sannadood ah dadkii ka geeriyooday sida ay cadaynayeen aayadaha uu ku furay xafladani bilowgeedii askarigii ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Djibouti dadka ku dhinta jidka ilaahay haba marayaan inay yihiin kuwa dhintay ma dhinto bal wuu nool yihiin ilaahay agtiisa ayaa lagu isaaqaya. waxaan u malaynayaa ciidanka Djibouti halkan inta ay joogeen waxay ummadaasi Soomaaliyeed ay walaalaha yihiin oo ay nabadgelyadu u yimaadeen ay ka joogsatay inay arkaan madax bini'aadan oo Soomaaliya oo muslim ah oo reer beledweyne oo la soo gooyey oo horta loo soo dhigay. maalintaa la aasaasay marka waxa ay noo tahay maalin ciid noo ah oo aad ugu farxayno. waxaa la yidhi go'aamadu way adag yihiin, go'aanku aad buu adag yahay, laakiin waxaa ka sii adag in la qaato go'aanka laftirkiisa. waxaan halkaan rabaa inaan ka idhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle mudane madaxweyne waad mahadsan tahay marka aad go'aanka qaadatay aad u adag in ciidamada ay loo soo dhigo halkan oo anagu aan aad u garanayo markaasi joogo. go'aankaasi geesinimo ee aad qaadatay waxa aad ku qaadatay waxay ahaayeen ragga iyo gabdhaha Djibouti ee geesiyiinta ah ee aanu aragnay karaamada iyo sharafta ay leeyihiin. mudane madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaadba waad mahadsan tahay.
gabagabadii munaasabada ayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ee ka socda wadanka Djibouti waxay madasha ku soo bandhigeen